kooxda fanaaniinta xidigaha geeska oo fadhigoodu yahay magaalada Hargeysa ayaa maalintii saddexaad u hoyday xabsiga kadib markii ay ka soo laabteen bandhig faneed ay ku soo dhigeen dalka Soomaaliya oo xukuumaddu dhibsatay safarkay halkaasi ku tageen. waxay jawaab uga dhigtay xukuumaddu inay ku qaato xeerka shaqaalaha halka gudoomiyaha kooxdu iska fogeeyay inay ka tirsan yihiin shaqaalaha dawladda. afarta fanaan oo saddex ka mid ka tinadaysan ayaa saaka maxkamadda la soo gala joojiyay taasoo sida uu gudoomiyaha Xasan Dhuxule Laab Saalax cadee loola dhaqmay si wanaagsan. haddaba Haruun News ayaa saaka shacabka Hargeysa aragtidooda ku aadan xadhig loo geystay wax ka weydiisay. dadweynaha ayaa fikiro kala gedisan ku cabira xadhiga lagula kacay fanaaniinta kacaanka geeska Afrika ee inta badan haatan heesooga laga jecel yahay kayga Soomaaliland waxaana yiraahdeen xidigaha geesku way fududahay marka loo eego dhacdooyinka iyo dhibaatooyinka ka taagan dalka. waxaan nahay dal aan wali isla garan sidii loo wada noolaan lahaa iyo sidii u wanaagsanayd ee ay dawladii ummadeeda ku dhiqi lahayd. xidigaha geesku marka hore runtii waxaan u malaynayaa dambadiyadii bulshada ka galeen baa laga jarayaayo xukuumadda 6 sanadood dalkii dadkii baabiisay ayay dad yahow gabigiinu sacabtuma ay u qaadiyeen 6 sanadood bay weesiyeen ilaahay shacabka been ugu tumayeen. horta waxaan leenahay mar abaalkoogii baa helay mid baan si yar fahamsiinaya dadka waxa weeye dhaqanka waxa la yiraahdo iyo heesuhu hadba intaad adigu kartidaada samayso bay adduunyada ku fidaan. halkan Hargeysa waxa lagu daawadaayo yimaad heeseeg cadaanka buf dheeriya yimaad lama qabsado waayo fikirkaaga bay fidanayaan afkaartaadii bay wadaan. waxa ku farxaday nimadaas xaqii ka yimaadaan xamarkeesiya de Hargeysa waa walaalihii Soomaaliland oo xuduudda ka gudbay. waxaan leenahay intaasi way ku filan tahay idinkana wax ku qaata shacbigana waxaan leenahay nimankii way noo soo noqdeen mar hadii la xidhay ha loo heliyo. magacaygu Faadmaadan Cawad baan idin mahadnaqayaa dhamaantiin. waxa weeyaan waxyaalo badan oo xadhig u baahan in laga dhiidiyo oo u baahan in laga hadlo ayaa dalka yaala. laakiin xamar baa la tagayo dhalinyaro tagtay ka soo noqotay waa bariyo diyaarad baa ka kacday airportka Hargeysa u baxaysa xamar oo dad qaada intaasoo tigidh baa laga jira Hargeysa gudaheeda. marka bini aadanka magacaas Yurub bay tagayaan hadii la yiraahdo wala taageeri lahaa laakiin xamar bay tagayaan ayaa laga celinaya waa ceeb waxa soo kale ummaddu inay waxyaalaha soo kale lagu dhaqmo ma magaca Soomaaliyeed baynu wadaagnaayay isu socodka laakiin dadka iyo dalka waa wax socda. dahabshiil inta businesska ugu badan buu xamar ku leeyahay baayac mushtarka Soomaaliland oo dhami baayac mushtarka ugu badan bay xamar ku leeyihiin. haddana in maanta la yiraahdo qof baa tagay anaa tagaya baraata la tagay cid waliba way tagaysaa laakiin hobalku waxaan u malaynayaa iyo dhakhtarkuba inaanay xuduud lahayn. horta waxyaalaha qaar kood in laga saaro qurux badan maalin baa inaynu dhinac u hadalaano ma qurux badnaa wuxuu inay dawladdu ku daysataa qurux badan. Cabdilaahi Cugsana waxaan leeyahay mushaahar baan dadka siiya xiniyaa dadka kaga saarmayside adiga Laab Saalax way haystaan heesiisii uu soo daynaya wixiisii waa waxad ka yeeshay. bismillaahir rahmaanir rahiim. magacaygu waa Maxamed Cilmi Cali ku nool magaalada Hargeysa. xariga xidigaha geeska waan ka soo horjeedaa marka koobaad ummadda Soomaaliland iyo Soomaaliya shirkii wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhaxeeya Turkiga waxay ku saxeexday in dadka caadiga isku gudbi karaan qodobkii ay shalay soo saxeexday inay maanta ka hor timaado mid nasiib darro. waxaan xidigaha geeskana leeyahay arinta maanta dhacday ku xidhay inaad wax ku qaadataan oo ummadina iyo dad shacabkiina. magacaygu waa Degmo Yuusuf Kuuleed waxaan ahay muwaadinad reer Hargeysa. xamar dadkeenu way tagaan 24 hours way ka yimaadaan guryaha uga dhisan oo dismisiyeen ku leenay. waxaa loo sheeganaya nimanka fanaaniinta ee taga ka soo noqday fanaaniintu waa international Mareykan bay tagayaan Ingiriis bay tagayaan meesha Itoobiya bay tagayaan xamar dalkeenu weeyaan oo dadkeenu baa jooga xamar way macilownay waa run wayna gumaysteen wayna dhibeen ha ahaato deemayna dadkeenu way joogaan guryaheenu baa ka dhisan dadkeenu baa jooga. maxaa loo sheeganaya fanaaniinta xasaneeye hala daayo dhalinyarada hala daayo kuwa tahriibaya ma la qabto inta kuwa xamar tagay la qabanayo hala daayo. tooyada heesta calanka Soomaaliland ka qaadayaan iyo markay Muqdisho tagayaan
waxay naga dhigayaan waddan isku mid ah oo dala oo sidii ay sheegayeen inuu xasan sheekh shariifna lahaa shalay isku mid baa tiino caatifad baa haysa waa mid dalkayagu waa mid shalayna waanu ka go'nay daraad haddaan u tagno oo ingiriiskii aanu xornimadii ka qaadano nidhi walaaladii nula taga mar haddaanu ka soo noqonnay annaga ina yaroo taga iyo gabadh yaroo tagto calanka soomaaliya kolba ka daba heesta annagu raalli kama nihin waxaan leenahay fanaaniintaas waa khaldayne xidigahooda geeskuba xidigaha muqdisho ha noqdaanoo xaggaabaha wada tagaan annagu qarannimada somalilan banaa keligay xitaa haddaan ka hadhay anigu somalilan anigoo ah jaamac cumar jaamac oo ah tagsiile ka shaqeeya caasimadda magaalada hargeysa waxaan caddaynaynaa inay nimankan xidigaha geesku ay waddanka ku soo kordhiyeen waxyaabo aan dhaqanka iyo maaragtay dastuurka iyo ay jebiyeen xeerkii u yaalay dalka qarannimada somalilan waxa weeye nimankan waxay ka mid ahaayeen markii dhowaan waa wasaaradda warfaafintu waxay ka dhigtay shaqaale qaran oo ka tirsan iyo luqad iyo diin baa ka dhaxaysa dalku kala go'ay siyaasad ahaan inuu isku soo noqon doono allahu yaclam laakiin in magaranaysaa qofkii xamar tagaa dee talaabiib buu tegey xamar maaha meel cadowa wax walba inaga dhexeeya waa dalkayga maxamed aadan ismaaciil maxamed jiglan har wanaag news hargeysa